السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا Mastering Power within YouTube channel walaalaha la socda meel kastoo aad joogtaan. waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ilaahay subxaana watacaala naga aqbalo ramadaanka aan soonnay ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto dadkii aan maaragtay soo gaarin ramadaanka inay dhammaystaan ilaahay allah subxaana watacaalana ha siiyo maaragtay sabir iimaan familka iyo ehelka iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen. waxaan halkan also ka leeyahay insha allah in qof walbo ibn aadan uu ogaado maaragtay nimcada ilaahay subxaana watacaala una siiyey oo hadda aan ka faa'iidaysanay si aan usii wadano insha allah. waxaan ka baranay ramadaanka tarbiyad aad u wanaagsan inta yani weliba lockdownka lagu jiro guryaha aan ku jirnay waxaan noo soo baxay ama maaragtay courage oo aan hore u samayn jirin oo ah in aan maaragtay guriga family ahaan lagu wada tukado in xiriirka uu sii bato marka alxamdulillah in meesha laga sii wado hadduu ilaahay idmo. waxaa kaloo taasna waxaan ku baraarujinaa nafteyda number 1 iyo adinkoo dhan walaalaha. haddaan kasii gudbo waxaan usoo galay qodobka aan ka hadli rabo. waa aragteen anigu ka hadlaya narcissist waxyaalaha dadka isla qubweyn reasonka horta runta uga hadlayo topigyadaas waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ee maaragtay iyo halista ay ku leeyihiin dad tiro badan oo maaragtay waxaan u gaarsiiyaan psychologically. anigana badanaa markaan ka hadlayo psychological issue yani waxaan uga hadlaa waxyaalaha aan daraasiyay aan dib u fiiriyey inta dadka ku xanuunsan ama dhibaatada gaarsiiyay meelaha ay ka yimaadaan. marka this is waxa waaye wax classic ahaan narcissist markaan leeyahay waa wax globally dad badan yani ay qabaan. waataan soo sheegay videoga hore summary haddaan idin kasii haddaan hore u daawan in 30kii qofba meel isugu timaado 15% oo kale in ay leeyihiin qof maaragtay type of narcissist ah oo manipulation ah. alxamdulillah dad badan ayaa jiro ila soo xiriira oo maaragtay weydiiyey inaan topic sii balaariyo laakiin maanta waxaan ka hadli doonaa very interesting ila joog insha allah anigoo idin siin doono qodobo ilaa 14 qodobadaana ay maaragtay ku saabsan yihiin qaabka lagu ogaado dadka. su-aashaan ku weydiin doono insha allah adiga dhegeysanaya insha allah una qaado waxaan in ay tahay wax aad ka baran kartid ogow again anigu kusoo celin doono haddaad aragtid qaabka aan ka hadli doono ama astaamo aan ka hadli doono ay leeyihiin dadkaas ama haddaad la dhaqmaysid dadkaas alla noosha ama aad dareentidba astaamahan dad leh ina ayada guriga kula nool yihiin ayada aad isla shaqaysaan waxaan rabaa inaad maaragtay careful aad samaysid awareness this is awareness one haddii aad dareentid si aan maaragtay insha allah lana soco channelka waxaan soo gelin doonaa anoo ka hadlayo qaabka loo manage gareeyo oo naftaada uga badbaadisid because dadkaa ma bedeli kartid laakiin waxa aad ku tacaali karto oo la dadaali kartid waa adiga nafsada oo ilaahay mas-uuliyad uu kaa siiyey naftaada ku dadaali kartaa. so taasna insha allah haddii ay kasii weynaato dhibaatadan ay dhib kasii weyn ay tahay oo aad dareemaysidna waa inaad professional help raasatid si aadan naftaada aysan u noqon psychological illness hadhowdina medical ay kugu noqon. so that is the maaragta warning sign. and again anoo dib usoo noqon doono waxaan ka hadlaya marka ma tahay qof su-aashaan ku weydiin doono ma dareentaa ama ma tahay ma aragta qof dareemo yani in someone make you feel crazy ina yani adi waalan tahay ay saxsan yihiin you're the only crazy. so okay waxaan kuu sheegaa waxaa jiro term la dhaho gaslight wuxuuna ka socdaa waa wax maaragtay waa term ka socda characteristic lagu ogaado dadka oo maaragtay narcissist ah. so gaslight waxaa laga wadaa dadka leerka ku shida ama dadka maaragtay torchka ku haya ama kaa dhiga inaad adiga waalan tahay ilaa markii dambe aad isu dareentid inaad waalan tahay oo hadhoodii maaragtay end up ku samaysid in daawo lagu siiyo ama isbitaal lagu geeyo. dadkaasna subxaanallah ilaahay subxaana watacaala number 1 soo hanuuniyo number 2 xaqa ha fahansiiyo number 3 dambiga ay galeenna inay dambi dhaaf ilaahay weydiistaan inay joojiyaan qaladka ay ku jiraan. waayo qof ibni aadana haddaad siid yani waxa gaslightka ku sheegaya amaan ku dhahayo psychological manipulation waayo qofka maaragtay dadka leerka ku shida. waxaana kula wadaagi doonaa insha allah example ayaa jiro researchna waad sii samayn kartaa si aad usii ogaatid waxay ku sameeyaan qofka ayay waxay ku siid yani miro ayay ku abuuraan oo shaki ah qofka inuu maaragtay waalan yahay hadhowdii uu maryaha xooran rabo qofkiina subxaanallah maskaxda ibni aadanka waa yarta hadhowdii waxaa dhacaysa inuu qofkaas inuu maskaxda gashto waad soo waalan rabaa hebel wuu i arkay qofkiina marka dambe wax ku shido. so this is waxay ku bilaabatay there's a movie classic movie la dhaho gaslightkaas waxa ninka sameeyey waa nin wuxuu ahaa xaaskiisa ayuu maaragtay rabo inuu waalo uu ka dhigo inay iyada waalan tahay wuxuuna halaasna wuxuu u sameynaya power iyo maaragtay in waana dadkii hore power inuu gain power uu sameeyo. dadka badanaa sameeyana waa dadka manipulativeka ah oo powerka ama political waxyaalaha sameeya. so this is the classic one wuxuu sameeyay xaaskiisa inuu maaragtay
nalka intuu guriga gadaal nal waxaa jiro oo hal meel laga wada daaro nalka guryaha dhan hal meel uu leeyahay nalka intuu ka daaro nalka markuu saa u ifo iyadii u maleys ee naxdo ee tiraado nalka aniga inta kama daarin muxuu saa la noqonaya asagii markay u sheegteen wuxuu asagaana daaraya gadaasheedu ka daaraya markay kusoo noqoto wuxuu dhahay waa soo yacni adiga kaliya arka markii dambe ee oyso uu ku dhaho waa soo waalan rabtaa let me help you aimkiisana waxa uu rabay inuu ayada isbitaalka dhanka waalida uu geeyo uu ku xareeyo meesha maaragtay asaalimka si ay inay waalantahay ilaahay kadib alxamdulillah nin waxa badbaadiyey allah ka sukow oo ninka loo keenay psychiatric oo baari laa ugu fiiriyey nalkii wuxuu dhahay no ma waalid qof baa ku waalaya sidasta gaslight markaan ka hadlay haddii aad dareentid qof inuu ku waalo astaamihiis ma doonaysaa inaad ogaatid ila joog insha allah si aad ogaatid astaamahooda marka astaamaha adiga aad ku ogaanaysid you been gaslighted in adiga maaragtay toosh lagugu shiday oo waali lagugu ridi rabo ama waali waalantaa lagu dhahay so waxaa ku ogaan kartaa number 1 inaad dareentid intuitionkaaga gudahaaga aad ka dareentid qofkaas marka ag fadhidid inaad comfortable noqon sababtoo ah ibni aadan ahaan energygeena waa isfiil garaynaa so haddii aad qof la fariisatid qalbi nadiifa qof wanaagsan waad dareemaysaa laakiin waxaa dhacayso qofkaas marka aad joogtid ayada waxaa dhici karta in guri la joogta ama shaqada marka iskugu imaataan oo kale ama asxaabatiin ama meelo maaragta aad isla socotiin so waxaa dhacayso qofkaas ina uncomfortable ina around them ku noqotid laakiin ma ogid reasonka uncomfortable ugu tahay aadan maaragtay u deganayn marka ag fadhidid adiga dhan inuu wax kugu daaraya u malaynaysid aadan comfortable ahayn wax kaasi yihiin intaasoo dhan waxaana kuu keenayo mana ogid yacni inuu qofkan wax sameynayo gadaashaada laakiin waxaa jiro wax aan leenahay intuition oo gudaheena ku jiro oo maaragta signalna siina ogeysiiya waxaa kaloo ah haddii aad taa aad dareentid oo kale qofka wuxuu dareemaa qofka toojka indhaha looga qabto oo kale ama nalka lagu shido oo psychological manipulationka lagu sameeyo waxaa ka mid ah inuu qofka uu dareemo mostly inaad adiga dambiga isa saartid you blame yourself and blamekaasna aad markasto adiga yacni dadku way isku dhacaan hadal yacni wuu dhacaa ama waxa laga yaabaa in qofkaas hadal kuu bilaabo hadalkii adiga aad ka xanaaqdid hadalka markaas sii wadid kadibna adiga aad noqotid adiga inaad raaligelisid qofkaasna raaligeliskaaga uu bato oo adigana blamekaaga isku samaysid all the time markastana inaad dareentid aniga waayo qofkan yacni waxa muusan sameyn anaa bilaabay haddaan hadalka meeshaas ka bilaabi lahayn ama waxaas haddaan aan dhihi lahayn intaanu wax ma dhici lahayn oo adiga aad bilaabid inaad maanta dhan soo gocatid oo adiga blame isku samaysid at the same timena waxa ku soo galo rabitaana inaad adiga raali gelisid the need of apologizing so that is the sign uu kamid yahay waxaa kaloo kamid ah haddii aad dareentid dadkaas waxay also sameeyaan they play with your memory xasuustaada ay ku ciyaaraan waayo waxay xasuustaada ugu ciyaarayaan for example hadda inay dadka maaragta leer kugu shidaan oo wax aadan qabin xanuun aadan qabin ku ama waa soo waalan rabtaa wax ayaga qaldeen waayo ama hadda ninkaas nal ku shidaya xaaskiisa oo kale oo hadhowdii maaragta uu ka dhigaa inay ayada waalan tahay xasuusteeda inay soo waalan rabto marka waxay ka dhigaan maaragta they play with your memory waxaan ka wadaa waxaa laga yaabaa in aad hadal sheeko isku keenteen adigana the facta ka hadlaysa wixii sidii u dhaceen ayaa sheeko ku keentay inta saa kuu fiiran waxa waxaan ma jiro you never said to us weligii ima sheegin weligii kamaada hadlin adiga marka aad qalqal gashid oo ah xasuusteeda wax karsi ah ee ku dhan walaa ayaantan waa soo lumi rabtaa xasuusta kaal waalid waxa soo wada dementia kugu dhici rabo maxaa dhaca aali dementia ma kugu dhici rabo oo dhaqso ah waaliya soo wada so tan marka xasuustaada ayay ku ciyaarayaan waxa qodobka afaraad waxay often ka dhigaan maaragtay waxaad dareemaysaa inaad aaminin maaragtay your decision they make you maaragtay often not to trust your own decision ina adiga go-aankaada aamin waayo waxay kaaga dhigayaan waxbaa ku tiri wixii ayaga waxay u nool yihiin aba kula joogaan ama ay ku ag joogaan ama maaragtay kula asxaab yihiin inay adiga sida ay adiga kuu gelin lahaayeen shaki oo adiga waali ah ku dareentid ama inaad khaldan tahay so shakigaas maadaama dadka gaslight manipulationka uu yahay inay kamid tahay dadka narcissist ah ilaahay subxaana watacaala ha naga fogeeyo hana naga badbaadiyo maaragtay shartooda so waxaa kamid ah marka inaad dareentid in aadan go-aan gaari karin adiga go-aankaada aadan aaminin absolutely because go-aan inaan sameyno ibni aadana unaa everyday dharka aan xirano cuntada aan cunno labiska aan samaysano dhaqanka aan ku dhaqano wax walba aan samaysano wax inaan akhrisano go-aankaaga markii dambe ma aaminay sidoo waayo waxaa kusoo galaya tashwiish ayay kugu furan so gaslights waa tashwiish dad ku furan so tashwiishkaas ayaa kugu furan ma dareemaysid also waxay kaa dhigayaan qodobka shanaad inaad maaragtay doubt ku samaysid oo ka shakisid adiga qiiradaada iyo own emotion inaad waxa uga shakinaysaa oo kale
too sensitive inaad tahay ama over exaggerate inaad wax ku dirtid maanta dhan wax walbo oo emotionka waxaa laga yaabaa in ay hadallo ku dhaheen hadalladii ay ku dhaheen caloosha kaa qabatay oo aad gudihii ka xanaaqday gudihii markaa ka xanaaqday ama aad ooysay kadib adiga marka waxaa ka shakanaysaa oo maxaan la ooyay aniga over too sensitive aan noqday aniga over too sensitive anaa wax ku dardaraayo adiga emotionkaaga real emotionkii kaasoo bixi lahaa ayay maaragtay shaki kaa gelinayaan taasna waa lagu ogaadaa and also qodobka kale waxay also dhaxan waxay bilaabaan oo kale waxa bilaabaysaa qofka actually waxaan rabaa insha Allah in ila joogtaan si fiican fahantaan hadaan fahmin insha Allah waan ku celin doonaa again this qodob waxaan ka wadaa inaan fahantaan rabaa qodob aad u muhiim ah in aad bilaawdid inaad adigi been sheegtid wixii runta ahaa oo aad ka hadlaysay been ka sheegtid because waxaad ka baqaysaa in oo ayaga ay accuse kugu sameeyaan inaad you overreacted for example wax runa oo aad rabtay wixii run ahaa ay ka hadli lahayd ayaa waxa ka hadlaysaa wax been ah inaad been sheegtid ay kugu maaragtay qasbayaan oo gudahaaga waxaad baranaysaa inaad saas samaysid wax been ah waxaana u sheegaysaa because waxaad ka cararaysaa in aad maaragtay overreaction inay ku dhahaan cabsi aad ka baqaysid inay ku dhahaan you overreacted laakiin wixii saxdi ahaa wada laakiin waxaad bilaabaysaa inaad been sheegtid oo adiga been baratid taasna waxa ku kalifayo markay dadkaas maaragtay astaamaha aad ku dareemi kartid inaad la nooshahay ama inaad adiga lagugu sameeyaba maaragtay hooshkaas lagugu hayaa ama maaragtay lightkaas waxaa kaloo ay sameeyaan subxaanallah in ay kaa dhigaan in ay ku aaminsiiyaan inaad adiga tahay qof xun qof qaldan qof maaragtay qofka muranka bilaabo qofka muranka hooyadii ama aabihii ah inaad tahay adiga maaragtay qof aad u qaldan ee adiga ku aaminsiiyaan markii dambena adiga iska aamintid oo aad tiraahdid muran haddaan bilaabo aniga waa qaladka muranka meesha aan ka bilaabo ma joojin karin so adigii tooshka ay kugu furayaan inaad adiga maaragtay blameka leedahay waxaa kaloo ay sameeyaan inaad maaragtay aad ka dareemaysaa inaad tahay qof maaragtay in qof uu waali rabo ama crazy uu ka dhigi rabo waxaa ka mid ah qodobka 8aad apologizing a lot when you're not your fault markaadan adoona qaldaneen waxaa arkaysaa inaad consistently markasta rabtid inaad qofkaas raali gelisid subxaanallah Allah subxaanahu wa tacaala raali geliyaa بني آدم رالي جلس كيس وحمد ترسو again وح أكو قلدنت إن رالي جلسيد وحق وواجب لكن this is وحن كهاللايا دتك والد واليا أما معرفت والد ربع إنه كفر وكله سده هذا نيكو أيدين شيء example كحاس كيس وكله وحكوت تهاي قف كاس ودري معايا إن ما أنت inconsistent apologize إن سميسين وح أذيع أحين قلت كاجا وحكلو إسميان إن أكتو ذكود درينتيد loss of confidence إنه كارمو كالسوني self confident waa muhiim inaad lahaatid waayo hadday kaa dhunto waxay kaasoo dhiminaysaa in badan oo maaragtay caafimaadkaaga ah waxay luminaysaa in badan wealthiga kusoo geli lahaa in badan dadnimadaadii marka dambe adiga waxaa bilaabaysaa inaad su-aal iska weydiisid aad tiraahdid week ka hor 2 bil ka hor 3 bil ka hor intaan qofkan la kulmin ama intaan qofkan ma aragtay nolol ku tirsan ama inaan qofkan shaqo la shaqeynin ama boss ii noqon ama qoftan inaysan aanan ma aragtay xaas ii noqon ama qoftan aan walaal ii noqon ama qoftan aan la shaqeynin waxaan ahaa qof kartile ama ma aragtay hadal cod kara ama qof ma aragtay hadalkiisa wax qabsan kara laakiin hadda waxaan noqday aad maalmo ka hor saasa ahaa laakiin ma isdhehaysid inuu qofkan ila maba ogidba in qof aad tahay that's why hadda aan symptom kaga hadlayo ma is ogid inaad tahay qof gaslightkaas lagu hayo tooshka lagu hayo la rabo in la waalo laakiin waxaa ku soo galaya inaad tiraahdi qofkii hore ma ihi waxaa kaloo aad dareemaysaa inaad istirahdid it makes you make you feel misunderstood qof aan la fahmi karin يعني قف قصة ابن آدم هذا language كل هذا لنا في سوماليا إن كل هذا English سو ده جلينايا وحن كهلا وحماركتي general وحن كهلا fact أهدت كماركتي اسمين manipulation لكن هذه وحكاية جان وحن كهلا اسفهم لعنت وحكوضان مركا عرفتينا وشفتي ورقوريا ومساس and can we make this أنا كهاد جان هذه أنا قلدنت هاد ودين مركا ده بس حديث بو قف يفهمه دونك مجرو معرفت make you feel like you misunderstood قف كفهمه بإن هذا حلينين الدونك ودن وهذه كلي أتاعي عندنا يسكون فاهمينين and number 13 وحا أركا أوكلا أيضا manipulation كأسميه وحكم إذا إنا درينتيد you defending معرفتي they twisted accusation مركز إنا هذه دفاع هيسيد دفاع عاسو wax maaragtay ayaga wixii ay rabaan in twisted ka dhigaan waxa ay aadan sameeynin korka ka saaraan
so qalad aadan samayn ee dusha kaa saara adigana maanta waxaa ku dhimatay ku rafaaday ku mashquushay meesha adduunka horumari lahayd wax qabsan lahayd knowledge-kaaga horumarin lahayd maaragtay naftaada wax tari lahayd hor u socon lahayd dadaali lahayd laakiin waxaa ku mashquulaysaa shaqadaadii hooshaadii waxa dhan ay noqonayso inaad maanta dhan difaac ku jirtid difaacaas oo ka imaaday twisted accusation maaragtay hadal maaragtay oo qofkaas uu soo bloodgareeyay oo adiga uu kugu talagalay inaad maaragtay oo kaaga dhigay inaad ku qaldantaa accusation subxaanallah ma fiicno accusationka waxaa ka mid ah qodobka u dambeeyo inay dadkaas aad ku ogaan kartid ficilkooda it doesn't match their word waxay ku hadlaan iyo ficilkooda isma raacsana subxaanallah ficilka ay ku dhawaaq ficilka ay sameeyaan iyo hadalkooda isma lahan waxaa laga yaabaa in hadal wanaagsan ay ku hadlaan laakiin ficil qaldan ay kula imaadaan waayo isma samayn karaan so anigoo conclusion kusoo laaban doono again oo aan maaragtay summary ku siin doono muhiimadda waxay tahay inaad horta naftaada mas-uul ka noqotid oo ogaatid signkan aan soo sheegay oo haddaa isku aragtid oo aad dareemaysid inuu qof uu kaa dhiga inaad adiga soo waalan rabtid mana soo waalan rabtid ina adiga yani adduunka dhan uu saxsan yahay adiga aa qaldan tahay in maaragtay adiga uu kaa dhigo ina adiga maanta oo dhan yani aad defending ku jirtid ogow ina yani ajirkaaga kaa yaraanayo caafimaadkaaga kaa yaraanayo dadkaas ogaatid number one waxaan ku dhihi lahaa seek maaragtay professional help and again haddii aad maaragtay kasoo fiicnaatid management aa u baahan tahay فيديو لا سو ان شاء الله فيديو كلا سو غلين دونا لا سو ماسترين باوين لنا شير غري هدا اوغتahay qof walaalo oo arintan ku dhibaataysan oo u haysta inuu soo waala rabo ani waan arkay dad badan maaragtay aan service-kayga igu yimaado ama client ahaan oo yani dareemay inay dad u dhow oo yani qaraabo family la ah inay rabaan inay waalaan oo ay qadka ka bixiyaan oo markasta ay ku dhaxaan oo xasuustaada soo lumi rabto waxaana way jiraan wayna dhacdaa laakiin waxa wanaagsan in adiga baratid qaabka aad isku difaaci lahayd insha Allah in meantime waxa idin kaga tagaya khayr haddii aad u baahan tahay inaad soo qortid waxyaalo aan rabtid doonaysid inaan cover gareeyo next time oo aan ka hadlo oo arrimahan ku saabsan commentiga maaragtay ku soo qor insha Allah share gareysid dad badan ay uga faa'iidaan aniga ahaan Safiyo way yar tahay yani uma badni YouTube oo ah maaragtay badanaa waayo waqtigeyga ayaa igu yar laakiin waqtiga aan u soo jeesto waqti u helo waxaan jeclaa dad badan inay ka faa'iidaan waana mahadsantiin assalamu calaykum